hanaankan dawadaag waxaan soo wadnay 3 sano u dambeeyay waxa ka faa'iideystay ama hanaankan wada 25 kun oo dumar ama qoys oo qoyskiina 6 qof ugu yaraan ay ku nooshahay ganacsiga uu sameeyay waa 9320 lacagta maalgelinta ay ku dhex wareegtaa waa 8,650,000 waa hanaan runtii lagaga bixi karaya faqriga dadkana wax badan u soo jeedinaya marka ka dawlad ahaan iyo ka ummad ahaanba inaynu isku tashanaa qurux badan marka xagga xitaa diintana la eegana waa hab aad u wanaagsan oo dadkii jaarkiiba iska warhaynaya wax wada qabsanaya qofka xitaa cid kale waxba kama sugaya isagii baa isku tashanaya laakiin waxa dan wadaag la iskama oranay eray xigmad ku fadhiyo ah waa dadkii wax wada lahaa waa dadkii maxay wadaageen dantii bay isugu yimaadeen marka erayga laftiisa uu xambaarsan yahay hadii la fasiro nuxur aad iyo aad u badan oo ah maxay ku xiran tahay bayskii nolosha gabigiisuba ku xiran marka waxa weeyaan waxaynu u baahannahay imika tusaale hadii imika ururkiinaasi uu yiraahdo beera aynu falanno oo mashruuc ay dawladdu soo teedo dhul baan halkaas siinaa wax ka beerta waa quwad xoog leh bari ka maalin waxbay la soo bixi karaan iyagaaba isku filan marka taana waxa weeyaan waxaanu ku rajo weynahay dhamaanteanba inay noqono dad wax wada waxa la socotaan wadanka maanta waxyaalaha ugu badan ee keenaya inuu wadanku macnaheedu waxa weeyaan noloshu adkaato wax kale maaha bulshada waxa ka dhiman iskaashigi waxaan leenahay sectors fara badan oo la maal gashado waxaan leenahay waxyaalo fara badan oo u baahan inay bulshada u midowdo 10 kun oo haweeneyn ka badan maanta ay macnaheedu waxa weeyaan waxna kala iibsadaan dantoodina ay u midoobeen maanta waxa weeyaan in lagu dayda oo runtii bulshaduna ay ku dayato laguna taageero xukuumad ahaan iyo cid waliba anagoo wasaaradda ganacsi ahaan priority aan ka dhiganaa hadii la yiraahdo idinkan waxa idinka rabaa in kula dardaarmayna inaydan interest kala yeelan inaydan siyaasadda idin kala jeedin inaydan maxay tahay bulshada waxa weeyaan bulshadu waa dadkii civilianka ahaa ee la doonayay inay noloshoodan kor u soo kacdo